kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasimo Media kusoo dhawaada qisadani jecel ee taxanaha inoo aheeday mahad iyo maandeed qaybteedii 17. maandeeq markay ka baxday umashii waxay dhaxda u xiratay kuriimada cunugeeda iyo in ay ka dheereyso cunsuriyada ka buuxdo dadka iyo hadal xumadooda. qarash iyo xoolo badan ma haysato balse waxay isku dayday in ay bilowdo ganacsi yaryar oo guriga hortiisa ay ku iibinayso iyo cuntooyinka fudfudud ee burka laga sameeyo. muddo ka bacdi waxay bilowday in ay ku darto ganacsigeeda in ay xaafadda dhexdeeda ku iibiso waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan sida cadarada iyo kareemooyinka. ugu dambeynna waxay xaafadda dhexdeeda ka furatay goob dumarka lagu qurxiyo. Mahad iyo Maryan guri ayay degeen, qoys ayayna yagleeleen, si caadi ahna way u wada nool yihiin. balse Maryan waxaa murugo ku haysan ninkii ay muddada sheekaysan jireen oo biili jiray, balse ay ballanta ay kaga baxday. laakiin isaga mar walba waxa uu ku dhahaa qaali waan ku cafiyay, aniga ayaa eeda leh oo ku guuleysan waayay inaan qalbigaaga jacayl ku abuuro. balse adiga waxba kuma haysto, jacaylka aan ku qabana ma aha mid aan iloobayo. waqtigii aan soo wada qaadanay waa ii xasuus igu qaali ah iyo eryo kale oo macaan. maalintii dambe waxaa magaalada soo gaaray oo qurbaha ka yimid ninkii ay Maryan wada sheekaysan jireen, wuxuuna u sheegay in uu yimid hadiyad qaali ahna uu u wado. waxay ku tiri birri casuumaad ayaan kuu sameynayaa ee xaafadda igu kaalay. Mahadna waxay u sheegtay in uu maanta xaafadda ugu imaanayo nin ay horay isu yaqaaneen oo qurbaha ka yimid. maalintaas way casuuntay, isna hadiyadii ayuu u keenay. waqti badan la isuma helin oo Mahad ayaa joogay. markuu sii baxayay ayay ku tiri qalbiga iga cafi, isna hayahuuna waan ku cafiyay ayuu ku yiri. maalintaasi kadib waxay ahaayeen dad si fiican u wada xiriira. haddaba maalin kale ayay xaafadda ku ballimisay xilli uu ninkeeda Mahad xaafadda ka maqnaa. si fiican ayaa loo sheekaystay waxaana la iska wareystay jacaylkii soo dhexmaray iyo waqtigii la soo wada qaatay. lama kala fogeyn oo dhinaca ayaa la isku hayay. taabasho jilicsan iyo dhunkasho romantic wadata ayaa bilaabatay oo sida barafkii oo kale ayaana la iskugu dhalaalay. dharkii goor la dhigtay oo la isqaawiyay maba laga warhayo, iyada oo la dhididsan yahay ayaana mar dambe la isgarab dhacay. la soco qaybta xigta hadduu Rabbi raali ka noqdo. daawade haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe garay, ha iloobin inaad muuqaalkani like saarto aadna sii share garayso si aan u helno saaxiibo badan oo muuqaalkeena daawato.